بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم في الأخير تشرفت لين رابطة هذه هكذا وهذا صومالي ماي تي في صومالي ماي تي في ويسنين كبرتين ساعدون عملتون هودها سينجل الأخير صومالي ماي تي في ما يبقى قاعد دون با وليالي إذا بدن وانا ملايون تيسن إذا كهر دون تنهدي إلى رب ما يبقى كم إذا هبا سد إسن الدرير تنبه باللي بركة سنايتي يهني فودها نوصارن أو حلقي نبي صلى الله عليه وسلم وسد الله شديس أولن دبل دون هدي إلى رب استوديو أنا صومالي ماي تي في ما يبقى هني باقديبا مرتين كهبا علماء كدرت مدرسة نور الإيمان oo runtii aan malayo intii sangeediyadan ka saasan oo ana ka dhawaay doona Somali May TV oo in ku warbixi doonaan fadlaga dhalashada nabiga kaleey salaatu wasalaam koort amanta la qabado doona iyo meel la qabado doona hadii ilaahay raba hadii aan idin sheego dadka culimada ay la fadhida caawa madrasada Nur al-Iman nooga timid waxa dhinacayga midigta fadhiya Sheikh Abdinaasir Sheikh Ali Sheikh Ahmed raade Sheikh Abdinaasir Sheikh Ahmed iyo Sheikh Mohamed Abdi Caafiya oo si fiican uga garanaysan dhankaas kale waxa ka xiga Sheikh Abdi Nuur Geele dhankan kale waxa asagana ay la fadhiya Haji Nuur Sofe iyo Mohamed Qadir iyo Abdu Qadir iyo Sheikh Saeed Macalin runtii dhamaantiin waxa idin leeyahay ku soo dhawaada Somali May TV على المصطفى والسلام الصلاة 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 على المصطفى والسلام على أحمد بالغرام وامدحوا نصر بالمجتبى والنظام اذكروا ربكم قاعدا والقيام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام سوى ذكر محيي العظام تطمئن القلوب بذكر السلام اسمعوا بعد ذا مدح خير لنا الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام وهاجاك سيدان هore baa idinku sheegay waxa fooda inagu soo haysa xilligii dhalashadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo bisha soo socota la qaban doona hadii ay yiraahdo runtii waxaan ay la joogaasaan hore baa idinku sheegay culimo faro badan oo ka timid madrasada Nur al-Iman marka ugu horeysa intaanan u guda galin dhinacii muxaadarooyinkii kale ama su'aalihii iyo waliba harakaadkii kale aanan maartay akhyaarta caawa halkan ay isugu yimaadeen intaysan u sameyn aan ka codsano Sheikh Abdinaasir Sheikh Ahmed inuu inooga faahfaahiyo fadliga dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxay ku saabsantahay ku soo dhawaashay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال إخوة الأعزاء الكرام سيدا ودوريه رؤى الشيغيبة وحاوية وحان كجرنا أما نقص ودى نقص هايسا إشي بركة سنيد المقعلية ربيع الأول بالشي ودشي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وكونك أصو ظاهريي waxaan insha Allah la qaban doonaa sidii aad sanawaadkii horay oo nooga barateen oo culamaa diinka iyo dadka maaragtay madrasada Nur al-Iman ku xiran iyo dadka magaalada Minneapolis ku dhaqan in badan oo kamida al dhigi doonaa mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha mawlid marka ay bilato insha Allah adigu taariikh dhexdeeda ku jirta ayaa la dhigi doonaa
waxaa sababta loo dhigahayaana waxa weeye sida ay dad badan oo islaam iyo anagu aan caqiidaysannahay mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka in la muujiyo farax iyo suruur iyo tasaduq iyo tacaaruf waa shay qurbi ah ilaahay aayadda qur-aanka oo hadda akrinayay wuxuu ku yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxa weeye taqwadu waa wax ilaahay nagu addoonsaday ee ummadihii hore oo naga horreeyana sidoo kale ilaahay uu ku addoonsaday waana shayga ilaahay loogu dhowaado laguna mutaysto wax wanaagsan inuu kuma agaalmariyo mawliidka rasuulka la dhigaana waxaan qabnaa inay tahay shay taqwa oo qurbi ah ilaahay loogu dhowaado waa hagaag runtii waxaan filayaa sheekh cabdinaasir khayr allaha siiyo inuu inoo faahfaahiyey dhinankana waxaan galaynaa dhinacii su-aalaha aan ku horeysiiyo maxamed cabdi caafi oo aad wada garanaysaan sheekh cabdi caafi xaflad fara badan ayaa soo qabateen oo ku saabsan dhalashada nabigeena sala allahu calayhi wasalam mar walba la qabto madrasada nuurul iimaan marka goormaa la qaban doonaa dad baan ogeyn haatan oo na daawanaya goormaa la qaban doonaa xafladaasi horta liban waa mahadsan tahay xafladda waxaa la qabanayaa bisha february ama bisha 2 maalinka ay 19 tahay oo sabti ah taariikhduna waa 19 maalinku waa sabti bishu waa bisha 2 waxayna bilaabanaysaa xafladdu kowda duurnimo waa gartay marka xagee lagu qaban doonaa marka waxaa lagu qabanayaa hoolka shirarka oo ku yaala Downtown Minneapolis oo loo yaqaano Convention Centerka lagu qaban doono waan gartay waxaa la qaban doonaa xafladda bisha 2 19 bishan sanadkan aan ku jirno 11 runtii xafladdu intee in lagayay socon doontaa marka aad u maraysaa sheekh cabdinaasir xafladdu waxay bilaabanaysaa sida sheekh maxamed buu u sheegay kowda duhurnimo waxayna soconaysaa ilaa iyo ilaa laga gaaro waqtiga loo yaqaan maaragta galabtii 9 saac asarka marka kadib oo dhamaan doonta waa gartay marka daawadayaasha idin daawanaya Somali My TV idinka daawanaya marka runtii xaflado fara badan ayaa soo qabateen xafladan oo haatan hore baa ugu sameyseen convention centerka marka maxaad u maleysaan inaad soo kordhin kartaan xafladii kale ay kaga duwnaan doonta ay daawadayaasha dhawaan karaan marka awalan xafladii aan soo qabanay waxay uga duwanaanaysaa maadaama mar walba aan wax soo qabato waxaa kasii bedelaysaa xafladan marka xafladii horeeto qaaliban dad yar moogay waxaa imaan jiray ama ka hadli jiray dadkeena Soomaalida muslimiinta hadda laakiin xafladan waxaan ku martiqaanay dad badan oo dadka Mareykanka u dhashay waxaa ka soo qayb gali doona speakero luqadda Mareykanka ku hadla u dhashay caalimiin oo luqadda Carabiga ku hadla marka taas ayaan xafladii hore uga bedelantaa waxyaalo badan uga bedelanta laakiin midda koowaad raba dadka inaan xasuusiyo dad badan oo da'yar aan luqadii fahmi karinin ama wadanka ku dhashay in luqadda ay ku hadlaan luqad Ingiriiska mashaayikh hadasha ay ka soo qayb galayaan oo wadamo kala duwan xataa Yemen ay ka mid tahay mashaayikh ay ka soo qayb galayaan ayaa waxyaalo ku soo kordhin ka mid waa gartay marka xafladaha runtii lagu qabto convention centerka badanaa waxa ay socdaan saacado dhaadheer ay socdaan dadka badanaa sida maaragtay masaajidada ay u sameeyaan muxaadarooyinka iyo kuwa ku saabsan marka maxaa lagu soo qaadi doonaa ma muxaadaro kaliya ay noqon doontaa dadku markay dhahaan dhalashada nabigeena waxaa laga yaabaa waagii Soomaaliya la joogay waxaa la sameyn jiray waa la dikrin jiray dikriga jira muxaadara ayaa jirtay marka dadku say u ogaadaan marka maxay dadku marka ay filayaan halkaasi ay ugu imaan doonaan hadii ay yiraahdaan aad baa u mahadsantahay waa su'aal aad u qiimo badan meesha maadaama annagu aan jirno wadan qurba ah dadkeena meesha ku dhashan ay yihiin dad aad iyo aad aan taariikhda Soomaaliya iyo midda nabigaba aan la soconin waxaa qorshaheenu yahay awalan horta dadka aan la socon xaaladda in lala socodsiiyo nabiga la baro salawaatu rabbi wa salaamu calayh bointiga ugu weyn oo xafladda la qabanayo waa in aan dadka barno nabiga qadarkiisa iyo wuxuu ahaa si loo helo in lagu daydo ilaa qof aad aqoon kuma dayi kartid ka bacdi marka waxyaalo kala duwan waxaan ku soo bandhigi doonaa insha Allah ta'ala su'aalo dadka looga jawaabo wixii su'aal ka qaba ama hawshaas ama halka hawlka diiniya in ciyaal yar yar oo arday ah oo la soo baray anaashiidii asxaabu rasuulilaahi markay ku soo dhaweynayeen xilligu uu joogay Madiina oo kale markuu nabigu ka haajiray anaashiidii lagu soo dhaweeyo kaleeto arda qaadaysa dadka la maqashiyo in ilmihii lagu farax galiyo nabigooda la jeclaysiiyo la baro si ay ugu daydaan ilmihana waxa la ogsoon yahay wax yaqaanaan ciyaartooyinka ninka wacansan way yaqaanaan dagaalyahanada ninka wacansan way yaqaanaan madaxweynayaasha adduunka in badan ka yaqaanaan khaasatan wadanka aad joogno laakiin badankoodu garan ma hayaan nabiga inaanu barno nabiga iyo qadarkiisa iyo inay jacaylka aan ku beerno waxyaalahaas soo bandhigi doona insha Allah ta'ala
waa gartay marka dhankii dhalinyaro waxaa jir sideeda oo kale ah xadarkada aad u jecel marka digrigaas iyo ma la keeni doona sidii loo soo xasuusiyo Soomaaliya oo kale insha Allah ta'ala aad iyo aad waa qorsheyn ugu jirta wala keenaya ma sha Allah waa hagaag waxaan filayaa inaad si fiican uga hesheen haddaba daawadayaasha Somali My TV ha iloobina bishan February nagu soo haysa waxaa naga dhiman baan u malaynayaa wax yar bishaasi 19keeda waa maalin ma aragtay sabti ah convention centerka aad wada garanaysaan ayaa halkaasi la isugu imaan doona haddii ay yiraahdo kasoo qaybgal dhalashadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo halkaasi ay isugu imaan doonaan culimo fara badan sida ciidamada ma aragtay masjidul nuur madrasada nuurul iimaan ay nala joogaan bay noo sheegeen isla habeenkaasina barnaamijkaasi si toos ah waxaad uga daawan kartaan haddii ay yiraahdo Somali My TV aad kaga soo deyn doona haddii ay iyo waliba website-yada kale sida somalimytv.net oo si live ah haddii aadan soo bixi karin guriga adoo jooga ama meel walba aad joogtid aad ka daawan doontid haddii ay yiraahdo aan ku laabto ciidamada runtii dad fara badan ayaa dhinacan iga fadhiya oo ayaguna ma aragtay ay rabaan inay barnaamijka ogeysiiska nagala qayb galaan idinku waxyaalaha aad ku soo dalagasheen maxay noqon kartaan isleedihiin maanta dikriga ama maxaad u malaysaa waxyaalahan ku soo talagalnay waxa weeye madaxiga rasuulka waa gartay inaan qaadno waa gartay waa kaas marka daawadayaasha idin daawanaysa bal say u maqlaan بل وحير الصلاة على المصطفى والسلام 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 على أحمد بالغرام وامدحوا النصر بالمجتبى والنظام اذكروا ربكم قاعدا والقيام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام سوى ذكر محيي العظام تطمئن القلوب بذكر السلام اسمعوا بعد ذا مدح خير لنا الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام فخرقوا الوثن والفخام موسم العرفات وعيد المقام أسوة للهدى أصل السامع وحام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام منظر للسلام من له مولدان من بضاح الحرام
من رقى حضرتان غيره لا يرى. الصلاة على المصطفى والسلام 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 على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. waa hagaag waxaan filayaa daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan inaad ka wada hesheen saligaasi ay dadka ku wada salinayeen nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo hadaladaasi ay qaadayeenba. waxaan filayaa inaad maalinta February 19keeda ay maaragtay si fiican aad uga bogsan doontaan haddii eeba yiraahdo iyo muxaadarooyin iyo waliba nashiidooyin halkaasi lagu soo sameyn doono. haddaba ha iloobin maalintaasi farantijeerkaaga intaad ku calaamadaysid kalandarka kugu dhegan kasoo qaybgal xafladaasi lagu qaban doono dhalashadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam February 19keeda waa maalin sabti ah. walowba aan filayo weatherkana inuu maalintaasi uusan baraf lahayn haddii eeba yidhaahdo waa maalin dhalasho nabigeene laga yaabo inuusan barafba noo da-in maaragtay weather fiican aan iska haysano baarkimadana ay iska fiican yihin haddii eeba yidhahdo. bal aan ku laabto ciimada sida maaragtay maxamed cabdi caafi waxaa la qabtaa xaflado saas oo kale ah muxaadarooyin baa la sameeyaa conventionka haddii lagu qabto jaaliyadda waxay badanaa ay isweydiiyaan conventionka lacag baa lagu galaayo saas baa jirta waxyaalahaas. marka inooga waran dhanka lacagta dadkana lacag baa aan ka rabnaa imaan doona mise maxaad ugu tala gasheen? aad baa umahadsan tahay. intaana jawaabta u gudbin waxaan rabaa aan ka hormarsado. awalan horta waxaan ku marti qaadayna xafladda qof walba oo kasoo qaybgeli kara. waxaan ku marti qaadayna dhammaan dadka ku nool United States khaasna gobolka degannahay gaar ahaan labada magaalada mataanaha mid aan joognay Sembol. marka xafladdu waxay u furan tahay qof kasta oo muslim ah oo jecel nabiga sallallahu alayhi wasallam oo doonaya inuu aqoon dheeraad ka korsado dhanka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo nabiga wax qabadkiisa siiradiisa maxabada nabiga waxaas lagu soo bandhigi doono. haddaan soo laabto dhanka lacagta xafladdu waa lacag laan waxa qarashkeedii bixiyay dad jecel nabiga sallallahu alayhi wasallam oo raba maalinta qiyaamada markay ilaahay hortagaan inay yiraahdaan ilaahu rabbiyo rasuulka aan noo soo dirtay jacaylkiisa ayaa waxaan ku bixinay anoo doonaya dadka in la baro nabigaaga jacaylkiisa qof haddaan la raaci kare ayaan qarashkan ku bixiyay in aan uga qayb qaato dadkaas nabiga si loo bari lahaa. marka xafladdu waa lacag la'aan cid kastaana way u furan tahay. waliba waxaan rabaa kare dadkan aan u sii sheego in aan qabanay qol ama room daycare ah dadkii ilmaha hayn lahaan aan u qabanay qofkii ilmaha aan haysanin ama ilmaha waxaan ka wada wax haysta uga soto aan haysanin inuu ilmihiisa soo qaato inoo keeno khayrkiisana uu dhageysto ilmahana intaas looga taxadiro oo loo hayo xafladdu ay socoto. waxa kale toorna dadkan aan u sheegno in saacadaha ay furan tahay laga bilaabo 1 maalinkaas ilaa ay ka dhamaanayso qof walba oo su'aal qaba oo arintaas wax waswaas uga jiraan in culamo caalimiin oo caamiliin ay ka qancinayaan. marka xataa qofkii raba in lagu soo dhaweeyo ama kalimad uu ka yiraahdo ama ka qayb qaato in uu aad looga qancinayo xataa haddii waa la ogyahay Soomaali baan nahay wax yar meedo ka jiraan ka soo qayb gal nana weydii su'aashaad doonaysa laga qanciyo telefoonada meeshaas ku qoran baa nagala soo xiriir kartaa wax kale oo dheeraada akhbaar dheeraada. صلي على الحبيب محمد رحمة المؤمنين والمؤمنات ربي صلي على الحبيب محمد رحمة المؤمنين والمؤمنات رحمة المؤمنين والمؤمنات رحمة المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وهجاك daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan waxaanu soo gaarnay. waxaan filayaa inaad si fiican aad uga hesheen gabagabadaasi ayay ahayd saligaasi la qaadaya iyo ku saliga even nabigeena sallallahu alayhi wasallam. haddaba yaan la iloobin February 19keeda aan yiraahday Saturday maalinta ay tahay wixii faahfaahin dheeraad ah rabtidna waxaad kala soo xiriiri kartaa telefoonka shaashada ku qoran uu leeyahay madrasada Nuurul Iimaan haddii ay yiraahdo ayaga ayaa kaaga jawaabaya wixii su'aalo ah iyo waliba waxaad haddii aad hore wax u keeni lahayd dad baa laga yaabaa in ayagu laftirkooda wax sadaqaystaan oo raashin ay meesha keenaan
wixiis oo dhan kulleyba intaadan aadan soo xilqaamin la soo xiriir madrasadaasi haddii eeba yidhaahdo si ay maaragtay wax walba ay kugu sheegaan walowba ay dad hore ay u bixiyeen meeshaasi kiradeedana laga yaaba inay maaragtay howlahaasi kalena ay qabtoon haddii eeba yidhahdo haddaba caruur